الضالين بسم الله وهاي بسك والسريسن كرام مرنا كرا وقاعد كرام قلدينا باب سوفيا دور من ده بسك كتكت أعوذ بالله من الشيطان قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد مرة بينا وحيو إن بوينتي تابتر وقت يرى كجرينا لكن إن بوينتي تابتر ديرسين بركة كسو قابس نام جدا بوينتي معناها ماشي مصعدين عن تابتر بروفيسور كل عقب هي عمي بحن asaga un baa dhahayo laaluusha wadanka lagu yimid Janiska duu hayn lahaa asaga laaluushku uu bixin lahaa soo maanta Janisku haye inuu bixiyo fariinteedu waxay ku socotaa guddiga doorashooyinka iyo dawladda wadanka ka jirto hadday balaarsan tahay ama hadday la taliyayaal ay leedahay la taliyayaal shaqadooda yaqaano la taliyayaal dagaal iyo reer hebelaan ka dhashay iyo طبعاً قفان فعلين كرائي ونعمبحان سمين كراماه وطريقها خيبتا دورشوين كي إيه سياسة دعم هدلها أبابل كامبين كان هدلها قدك فدرال إيو قدك إن قبلاتي دعم هدلها أرتبحي لوجه دي مخالة أدونك cover grey in العقل بحيه أوكي العقل بحنت لب معها وودنا كي جرتا لكن إيش جا كهذا لا يحوي هاي بلان لو تطوع ومرة لا يصير شقي وبروفيسور كورسكي جوجا حاجة نية دلوقتي سي معلمي عبدي حاش اللي أفدوه جري أيامين كان لبعضي maalintii madaxweyne farmaajo la dooranayay iyo maalin kale inay ahayd ma aqaan warqad qoray professor Abdi Ismail Samatar wuxuu qoray warqad dhahayso iimaan waraysineeda jawaari baa wuxuu yiri no imaw warqad baan u qoraynaa shaqadaada oranaysa inta looga baahan yahay anigana waxaan ku yiri waqti xileedka iskuulada way furan yihiin oo wali ma dhamaan markaas wuxuu yiri jawaariya wuxuu yiri waqti xileed hatta sugin anaga ku baahan doorashooyinkan inaan la qabataa oo dadka naga wacyi gelisaa maadaama aad siyaasi iyo arrimaha Soomaaliya aad ka hadashaa waxaan ku yiri been ma sheegi karo aniga بعد سبب الخطر وسكريا و دبع علىها ويسترن كدتك دقنا قدها هواي إن إسكريان سيدا عدان كعمل سيدا الدولة ده كلا إدتك كلا إلى دقيقين أو داع واحد أيسن رمين الداع ويسترن كواحد أوسن رمين وداعت كيه واحد وربط داعت كمان مركو يري جواري سيرودر كرتا معقول إنه قن كرتا in institution dan gudoomiye baarlamaan ee dawladdan ay been sheegtaa hadaladiisa waa anima dhihin hadaa xasuustaan beenta intaas leeg corruption intaas leeg dadka sheegaya maxay yihiin ibni aadam ma aha ayagu dalixinay marka meeshaas waxaa iga cadaatay in uu jira connection ila dawladii hore dawladdan ka horeysay Xasan Sheekh iyo Jawaari waxa si ahayn oo farmaajo waqtiga la dooranay inuu jira connection professorka iyo nimanka jasiirad jooga ilaa ay Abdi Xaashi ilaa ay Jawaari inuu jira ay u wacan karaan marka qorshe waxaa jiro ah Abdi Xaashi waxyaalo badan ma fahansano oo adduun weynaha waxba kama gali karo imaaraadka waan ku hungownay dhaheen
odaga waa duqoobay cilmi badanna ma lehen xilligii nabadana siyaasad kuma uu jirin qaybta suugaanta national theater-ka heesaha la alifo unbuu joogi jiray 1980s ilaa 90s marka nin u dhuunduloola siyaasadaha oo scholar ah ma ahayn marka maadaama ninkan cabdi ismaaciil cabdi samatar uu yahay nin ka yimid westernka ee u dhuunduleela adduunweynaha say iska dhaadhiciyaan waa ilaa nimankan iyaga international waxba kuma soo baran waxay jecel yihiin nin gaal la hadli karo nin gaal qancin karo nin cad qancin karo nin shisheeye qancin karo oo dhihi karo annagaa soo gubayn annagaa gadayne nala heshiiya sayid maxamed cabdullaahi xasan wuxuu dhaha ninkii burunji u rara bay ahayd faranji ninkii faranjiga maxaa la burunji u raro ama u ilaala ah ama oorkan u raro saas camal aja jira aniguna ma og ilaahayna ma ogol anigana ma ogolaanayo wax saas waxay kala maqan tahay ninkii faranji oorka u raro ama u ilaala ah ama oorka u raro wax saas camal adiga iga saxsan marka nimankan inay ninkan keensadeen ee la raba aqalka sare firiya nad ismaaciil cabdi samatar inuu yahay le xildhibaan aqalka sare waxa loo wada oo loo dramid up oo gurbaanka loo tumanayo waa in laga dhigaa gudoomiyaha aqalka sare markaas iskaalshada uu la gashto horta tilaabada horeeto governmental official muusan ahayn oo dowladda kama uu tirsanayn oo meeluu ka soo gala ma ahayn nin siyaasadaha falanqeeyu ahaa oo wax kasta oo dhaho dowladaha kama qorayaan shisheeye kama maqno oo janis waxay rabaan ay yidhaahdaan senator hebel baa aan waraysanay guddigii baa diidan dowladdan saas adiga camal orkacsi not only keliya ma aha in cabdi samatar uu xildhibaan yahay waa in loo wadaa aqalka sare ee gudoomiyaha gobolka ay u rabaan nimanka shisheeyaha ah ama ha ahaadaan western ama emirates in gulf arab ha ahaadaan ama dowladahan uhuru badhaadhay ha ahaadaan marka aniga ma aha corruption ajira iyo lacagaa la dhiibay iyo ma aha khudbadeeda waxay tahay inaan u jeedaa inta ilaa iyo Miami jidka waxa yaalo inta ina iga muuqataa waxa loo keenay ilaa ninkan Soomaaliya soo dhax gal jira ana ka aqaan ninkan siyaasad bulaacad waa u dhigi siyaasad bulaacad khudbadiisa ana dhageysan jira ana ku taxnaa ana dhigi jira ninkan waa nin qatar ah Soomaalinimo inay ka muuqataa moodi jira ninkan waa nin matoor la soo saartay ciday soo saartay waa soo saartay aniga runtii waa raaci jiray waa dhageysan jiray hadaladiisa waa ku taxnaan jiray laakiin waxaan ka qoostay markuu jasiiro intuu soo istaagay qoladan xamar joogto hadalada goosgoos oo hadda markii la doortay oo waxa arkaysaa goosgoos oo hore ugu khudbeeyay qolada xamar joogtana uu ka hadlaayo ummadda dhan uu ka hadlaayo haddana waxaa moodaa qolada xamar joogtana inuu isxijiyey oo kaarkii Ismaaciil Cumar Geele heroism ahaa loo soo dhiibay marka only nimankan raba inay dowlad internationalka looga badiyay inay calaaqaad la yeeshaan oo warqado u qoraan oo saaxiibna yeeshaan nin waxaan keensanay yiraahdeen scholar markaan xildhibaan ka dhiganayna aqalka saraana faraha ka saarayna marka maxaan cunnaa aan la soo heshiinayna si aan u iibsanaa awalba academically and scholarly wax u iibsanaynin bakaara camal ay u iibsanayeen awal laakiin hadda waxay rabaan si governmental ah oo academic ah inay wax u iibsadaan nin scholar ah in academic ah in senior emeritus professor iska soo hormariyaan isagana caloosha u buuxiyaan kuna qanciyaan reer hebel aad tahay waa ka xaal marinaynaa muuse suudi walaalka hadalka uu ku yiri kaba kaa waaweyn gashatay mahan ama tuulo ku leedahay muuse suudi nin xariif ah meel dheer wax ka arkaa wuu fiiri wuxuu dhahay meesha aan tuulo baa ka leedahay walaalkiisa waa Axmed Samatar Axmed Ismaaciil Samatar saaxiibo intee ka soo gashay oo dhahay tuuladeedii magaaladeedii Siinaaya ku xisaabtay mooda Siinaaya ka raadso dhahay ka jirso dhahay Siinaaya waxa ka jirsays
marka odaga daacadnimo u hadlaayay laakiin hadda sheekadu waxay noqotay in laga maarmi waayo nin gaala ku xiro ilaan siyaasadda internationalka loo waraayo warqadaa laga qoray Kenya meel lagu xiray qareen iyo baarlamaan xildhibaan Kenyan aadaad wuxuu dhahay waan looga raayay siyaasadda Soomaaliya meel ay nagu xiratay heer waxayna gaarsiisay aan visa u qaadanaa shaqaalihii ka yimaada ee ku noqon waayaan aan visa qaadanaayo safaaradda Soomaaliya iska soo registrayna yiraahdaa xilligii dowladda caanka xilligii visa Soomaaliya diamond oo ah meel loo maraa lahaa xilligaas ay ugu celisay marka nimankii ka qayb qeylinayay jazeera oo mucaaradka ahaa now siyaasad international uga gadmi karta oo nin scholar ah uu u suuq geyn karo I don't know inay u gadmi doonto laakiin waa suuq geyn karaa adiga balkan haddii lagu dhaho suuqa bakaaraha balkan geyso xaaji cabdiyow suuqa bakaaraha lacag fiican lagaa siiyaa intaa ku gadan lahayd number 4 balkan suuqa bakaara geyso oo wax ku geeyay aysan lahayn oo maanta suuqa bakaara lagu geeyo balkii inuu ku gadmaayo ilaaha laakiin balkii adiga meeshii niyadaada ku qanacsaneed aan lagu geeyo lagu faanin jiray marka cadbi samatar waxaa loo keensaday inuu suuqa bakaaro balkii inuu intuu qaado uu international community-ga ee raba Soomaaliya u hanqal taagayo ee si academic ah laakiin waxba looga iibin ee iyagana uu yahay ninkooda America u joogay oo dowladda Americana ay ka dambeyn karto in asaga uu isu soo sharaxa ila lacag ma heli kara professor waa guri weyn oo payment ana uu degay oo 30 sano payment ka soo bixinayo $2,000 ijaarka kaliya marka asaga iyo eega uu qabo uu soo gatay hadduu eey qababa sida la sheegay laakiin I'm not sure iyo familkiisa kama badan lacagta uu sameeyay nafad marka hadda barnaamijkan wuxuu yahay in ay step-kii koowaad ee aqalka sare u hirgashay imaaraadka Kenya iyo wixii la halmaalay westernka ahaa ee Scandinavian-kaasi kulli through the channels of imperialism or maxaa la dhahaa gumaystayaasha shisheeyaha colonialism inay maanta u hirgeli rabto ay step koowaad qaadeen nadhoonle cabdi samatarna inuu yahay dadkii ooga soo baxay Jowhar ee Hirshabeelle kuwii Jubbaland ooga soo baxay waxaa moodaa dowladda linaya disho otaheeda in lagu dheelaayo linaya disho otahe waxaa la dhahaa centerka banooniga markii la dheelaayo meesha centerka ah ee u dhexaysa labada bortiyo haddaad ka siin maxaa uga qabanaya yaa ka daran buneo ma ka saay u qabanaya haddaa ka saaxtaa ma qabanaya laafaa ku jira linaya disho ote aa lagu dheelooyaa dowladda aqalka sare markay timaado waxaan u sheegaa dowladda koodhkaaga in lagu dheelaayo basketball haddaa dheeshin koodhkaagaa lagu dheelaayo banooni kaa dhammaanayo waa lagugu soo celinoyaa marka surroundingka dowladda advicekeeda ma aqaan shaqadooda inay yaqaanaan iyo in ayaga naftarkooda show me the shekels ay dhahaan yuhuudda ama show me the dinar ama show me the dirham ama show me the dollar ama show me the shilling nimanka yuhuudda u janjeeray CNN markay ka hadlaano Netanyahu iyo dhiigi cabnimadooda iyo maskarkooda difaaco ayaa nimanka kale cadaanka oo dimuqraadiyada iska raadiya waxay dhahaan show me the shekels waa lacagta yuhuudda ee isticmaasho shilinka camal dollarka camal macnaha show me the shekel hadduu nin cadaan ku dhaho macnaha yuhuudda ku gadatay waa marka hadda ma garanayo nimanka madaxweynaha ku wareegsan ama advisorka dhinaca siyaasadda falanqeeya ama campaignka meeshay wax ka arkayaan ama inay show me the shekels noqdeen dowladda waxaan leeyahay linaya disho otahaagaa lagu dheelaya marna boortiyoorigaagaa la soo gaaray boortiyoorigaaga linayihiisa la taagan la soo istaagayaa next 48 hours meaning haddii aqalka sare lagu soo celiyay nimankii dhiigi cabka ahaa
nimankii imaaraadka baziinka u ahaa ninkii dalaalka u ahaa isku xiri lahaa academic waa ee lahaayeen oo isku xiri lahaa u qaadi lahaa fariintooda adduunku u gadi lahaa ee awal siyaasadda bulaacada ee qoladan xamar joogto qoladan koonfur joogto nagu hayay ee markaas siinaayay isxijinaayay markuu ku soo xiiqayna walaalaha meeshaan waxbaa la kala gataa iskaga noqo u yimid haddii maanta uu intuu lacagtii uu dhihi jiray corruption buu farmaajo kusoo baxay dhihi jiray maanta hadduu asaga qaybiyey dee iskaashada la gashaa lahaynimo marka ma ka maqno in jaziira lagu soo coach gareey lagu soo advice gareeyniyo meeshaan lacag la dhiibaa waxaan inay noo soo gadmaan haddaan rabno anaga waxbaan bixinaynaa saaxiibo soo gal meeshaan corruption ka bilaab jeeba ku buuxso in lagu soo maxaa la dhahaa lagula soo taliyey marka maanta isaga u qaadayo u gadayo siyaasadda nimankii maalmahan qeylqeylinaya guul weynayna u tahay marka waxaa ninkii caynaansho ahaa isagana uu maxaa resigning sameeyey macnaha waxbuu arkay duufaan buu arkay marka waxaan dhihi lahaa dhanka dowladda xoogaa kiniiniga hurdada maameelni lagu daray hurdo maa kala aadeen salaan ii kala taga miya I don't understand ma fahansani laakiin waxa ii soo uraya wax fiican ma aha koodhkiinii darbiyadiinii waa ilaalsan weydeen oo dadkii dalka wax u qaban lahaa isisaaraa ka gasheen oo kusoo wacaya isisaar kolkeyga waa cadya aqalka sarena way u eg tahay sidii aqalka sare sida aqalka hoosena sidii aqalka sare way u eg tahay marka haddii linaya dishoota lagu dheelaayo maanta aqalkaaga hoose maxaa kuu diyaarsan ay nimankan lixaad ag dhigayaan at least dadkii adiga ku rabay ee dowladnimada ka go'saneed ee soomaalida ahayd ee xaqa u lahaa iyo qabaa'iladii xaqa u lahaa inay dowladda ay rabaan ee ninkay rabaan doortaan lacalla hadday adiga ku rabaan awood ma leedahay ee kugu dooran karaan oo dadkaas aa ku dhihi kartid yes codkiina waa ajiibay if that's yes ay tahay uma jeedo physically uma jeedo theoretically uma jeedo physically uma jeedo qiyaas ahaanna uma jeedo ilaan cabdi samatar keliya meeshan kama arkin waxaan ka arkay jubbaland iyo hirshabeelle iyo deni wixii ka yimid aan u jeedaa tii ugu dambeysay ee gobolka banaadir lagu qabanayo lineesh disho otaaga la soo galay banooniga koodhkaagu yaalaa boortiyooriga kama soo baxayo banooniga birtaa lagu garaacaya ama hala dhaliya ama dhal qorsheygu wuxuu yahay cabdi samatar guddoomiyaha baarlamaanka aqalka saraa loo wadaa tashkiilin badanaa imaan doonta iyo dad badan oo aqalka sare oo la qabsado ayagana oo labadii kuu soo hartay madaxa laga waxeeyo kadibna hoos loo soo dhaco baqshadihii laiskugu ridi jiray laiskugu rido ayaa imaan doonta aqalka sare hadday qabsadeen aqalka hoosena waa usoo degayaan wuxuu kuu diyaarsan adaa taqaanid haddaad tartan diyaar u tahay adaa taqaanid haddii aadan u ahayn adaa taqaanid laakiin nalkan suu igu muuqdo waxba kuma diyaarsan waa mahadsanta abukaataha aad iyo aad u mahadsan yahay